waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastoo joogtaanba kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a wadahadaladii nabadda ee xukuumadda itoobiya iyo maamulka tigreega u socday oo lagu kala kacay iyo xubnaha matalaya xukuumadda itoobiya oo diiday inay saxeexaan heshiiska lagu dhammaynayo colaadda tigreega iyo ergadii xukuumadda oo iskaga tegay goobtii uu ka socotay dib u heshiisiintu kuna laabtay Addis Ababa. maxayse haddaba xukuumaddu ka biyo diiday ee ay u saxeexi weyday heshiiska iyo dagaalada itoobiya oo la sheegayo inay dib u xoogaysan doonaan? qodobada iyo qodobo kale ayaynu barnaamijka ku falaqayn doonaa. kusoo dhowaada wagaag aynu ku bilowna barnaamijkii wadahadaladii nabadda ee u dhexeeyay xukuumadda itoobiya iyo maamulka tigreega ee ka socday magaalada Jabuuti ayaa la sheegay in lagu kala kacay oo markaa heshiiskii la doonaya in la saxeexo la isku diiday. waxaana la sheegayaa in xukuumadda itoobiya ergadii ka socotay ay markaasi diideen in ay saxeexaan heshiiskaasi kadibna ay dib ugu laabteen caasimadda itoobiya Addis Ababa. kooxii kale iyaguna ergada ahaa ee ka socday maamulka tigreega ayaa iyagana la sheegay markii dambe inay iyaguna iska tegeen oo maqalla ku laabteen. kooxii dhexdhexaadiyaashuna waxaa la sheegay ee uu ka mid ahaa Mike Hammer oo ah ergeyga Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa la sheegay haatan inuu Addis Ababa isaguna ku soo noqday, sidoo kale Obasanjo uu soo raacay Addis Ababa u yimid oo haatan xukuumadda itoobiya ay toos ula hadlayaan oo ay markaasi dhiraandhirinayaan ama ay doonayaan inay ku qanciyaan in qodobadaasi ay diiday ama waxyaabaha ay ka boodeen ee heshiiskaasi ku saabsanaa la xaliyo. laakiin ilaa iyo haatan ififaalo aan fiicnayn ayaa markaasi laga soo sheegayaa. waxaana la sheegay markaasi ilaa iyo haatan la sheegayaa in wadahadaladaasi ay noqdeen qaar fashilmay amaba u dhowba in markaasi ay halkaasi ku burburaan, colaaduna ay dib u bilaabmayso. haddaba maxaa la isku diiday? maxayse xukuumaddu ay ka booday? bal qodobadaasi ayaynu eegaynaa. heshiiskaasi ay ka biyo diiday markaasi xukuumadda itoobiya. bal horta inta aynaan eegin qodobaday ka boodeen kuwa laysla ogolaa aynu eegno. waxaa la sheegayaa markii hore in moogtay feerbale ama hadal ahaan ama moogtay guud ahaan laysla qaatay in la heshiiyo oo markaasi qodobka koowaadna markaa ah in colaadda la joojiyo oo xabadda la joojiyo oo markaasi dee nabad ay noqotay itoobiya. qodobkaa isaga waa laysla qaatay, gebi ahaanna markaasi heshiis ayaa lagu ahaa. laakiin waxa la isku diiday baa ah heshiiska ayaa la doonay markaasi in horta qaab qoraala loo soo qoro baa layidhi oo lasoo qoro si markaasi dhinacyadu ay u saxeexaan. qodobada horta ku yaala heshiiska qoraalka ah ee la sameeyey waxaa ugu weynaa marka sida moogtay marka horeba la isla gartay in colaadda iyo xabadda la joojiyo oo nabad moogtay ka hirgasho itoobiya, in dhinacyadu qolo walba ciidankooga ay ka qaadaan furimaha dagaalka, in ciidamada Eritrea iyo moogtay ciidamada kale baa layidhi sida qowmiyadda Axmaarada oo kale ay ka baxaan dhulka Tigreega. qodobka kalena waxa weeyaan in ay markaa xukuumadda itoobiya ay qaado gebi ahaanba cunaqabataynta ama xayiraadda saaran Tigreega oo markaasi waxyaabihii asaasiga sida bankaka iyo moogtay isgaarsiinta iyo isku socodka gaadiidka cirka iyo dhulkaba la furo markaasi loo furo Tigreega, iyo in gargaarka caawimaadka loo ogolaado si bilaa shuruuda inuu ku gaadho Tigreega. marka qodobada horta waa iska moogtay mubaax, laakiin laba qodob ayaa u egtay xukuumaddu inay ka booday. horta markii hore Tigreegu waxay sheegeen marka heshiiskaasi goobtaasi sida laga soo warramayay iyagu marka inay ogol yihiin in gebi ahaan la saxeexo oo markaasi ay aqbaleen qodobadaasi markii lasoo qoray. sidoo kale marka kooxaha kale ee marka kormeerka ka ahaa ama dhiraandhirinayay sida midowda Afrika iyo moogtay Mareykanka iyo wadamada reer Yurub ayaa iyaguna sheegay inay taageersan yihiin qodobada lasoo qoray ee lagu heshiinayo. laakiin xukuumadda itoobiya ergadii ka socotay ayaa markay akhriyeen qoraalkii waxay yidhahdeen anagu kuma jirno badan ma saxeexi karna, imika dib baan u noqonaynaayo madaxdayadii Addis Ababa joogtay ayaanu la soo tashanaynaa, sidaa darteed imika diyaar uma nihin bay yidhahdeen inaan saxeexno. waana iskaga soo baxeen goobtii shirku ka socday. haddaba maxay ka boodeen baa la isweydiin karaa. laba qodob baa loo malaynayaa inay ka boodeen. qodob waxa weeye markaa
in ciidamada qoomiyadda maogta axmaarada iyo markaa kuwa Eritrea ee jooga gobolka Tigray waa galbeedka Tigray baa la sheegayay in ay laga qaado oo kale qodobkaasi ay aad uga biyadiideen baa la sheegayaa sida oo kale waxay ka biyadiideen xayiraadda in si dhaqso ah looga qaado Tigrayga oo waxay isleeyihiin markaa hub casri heli doonaan oo way ku adu waxyaabo noocaas adu sababta ma sheegin laakiin way ka biyadiideen baa la inay saxaxaan waxaana ku laabtay baa la markaasi Addis Ababa haddaba maalintii waxaa la yidhi markaa aduu xaddi waxaan jeedaa jimcihii ayay soo noqdeen sabtidii ilaa xaddi waa la sugayay markaasi bal inay soo noqdaan oo ay dib Jabuuti ugu soo noqdaan laakiin ergadii way soo noqon weydayba markaa madaxdii sare isku afgaran waayeen baa la yidhi cidda ergada horta hogaaminaysay waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Dhamaka Makanan iyo Ridwaan Xuseen oo arrimaha dibadda kala taliyaha Abiy Ahmed iyo markaasi dhowr xubnood oo kale waa 7 xubnood ba matalayay 7 xubnood waxa ay markaasi markay madaxdii sare oo ra'iisul wasaare Abiy iyo markaas ku noqdeen baa la yidhi ay wax jawaab ah ilaa ay haatan lagama hayaba dib ugu may noqon goobtii shirka maalintii dhawaateen haddaba ay Tigray ku dhawaaqeen habeen hore ay lahaayeen heshiis baan gaarnay xabad joojinta heshiiska qodobada ay ku dhawaaqeen waxay ahayd markaasi cadaadis ay ku saarayeen xukuumadda Itoobiya in mar haddii markii horeba la isku afkartay la heshiiyo saxiixan ay dhamaystiraan sidaa darteed waxay cadaadis ku saarayeen bal xukuumadda Itoobiya oo markaa ay tusayeen beesha caalamka in Tigraygu iyagu nabad doonayaan laakiin cidda diidaysa ay tahay xukuumadda Itoobiya marka dhawaaqista ay ku dhawaaqeen xabad joojinta Tigraygu ay leeyihiin nabad baanu doonaynaa iyo barwaaqo in Itoobiya ku noolaato waxay ahayd bal leeyahay buuq ay samaysanayeen oo moogda tusayeen beesha caalamka in iyagu ay nabad diyaar u yihiin laakiinse xukuumadda ay aanay nabad diyaar u ahayn aduu si kasta ha ahaatee ergadii haatan way soo laabatay baa la yidhi markaa xubnihii kale dee beesha caalamka ka socday ee moogtay sida ergiga Maraykanka iyo markaasi ergiga midowga Afrika Obasanjo yacni way soo wada noqdeen Addis Ababa yimaadeen waxay haatan la hadlayaan xubnihii moogtay xukuumadda Itoobiya leeyihiin war kale heshiiska saxiixa ilaa ay haatan way diideen xukuumaddu oo way ka biyadiiday baa la yidhi heshiiska waxaan u dhow yahay markaa heshiiskan inuu burburo baa la leeyahay walaac baana laga muujinayaa in dagaaladu haatan ay sii cuslaadaan oo markaasi ay dib u sii xoogaystaan haddii ay sida ugu dhaqsaha badan leh xukuumaddu uga jawaabi weydo saacadaha soo socda ama ilaa berri toole ilaa saad dambe hadday ka jawaabi weydo xukuumaddu colaadu way sii laabmaysaaba haatan laga sii digayaa dadka falanqeeya arrimaha Itoobiya iyo marka geeska Afrika aad bay walaac uga muujinayaan barnaamijkan intaas ku dhageeyay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo